بسم الله الرحمن الرحيم نبض وديال كسر دواده حقت ورركا qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qorshe cusub ayaa la tagaynaa buu yiri shirka dhow Soomaaliya ka dhici doona dhoofka xoolaha ee adduunka ee Soomaaliya hoos u dhac ayaa ku yimid sidoo kale Tansaaniya waxa ay Kenya ka mamnuucday arrimaha duulimaadka qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira maanta waxa kamid ah safiirka China waxa uu tagay Hargeysa sidoo kale kama marna xubnihii ciyaaraha iyo saadaasha hawada waa mar kale iyo xogta wararka وهاجاك داود يال اسكو سنة دونا كسنت عرض وحي أكو بيجان تاي لبضة بيشة سديدات أغسطس سنة لباتن أي نكو بلاونا دوف كا حولها لودو فينجري والدماء كمدين سعودية يا دبي أي واحد وصدع كوي من سنة كان وحنا رجع حستا الصوماليات أي شيء إن أي سنة كان إن واحد ودو فين واحد حولها ودبض الله دكذاها مقدشو قاركود يدكذاها دون كوا إحريين حالة دا كورونا فيروس أول سيدو كله أربعة حجك أي واحد إن هو صدع يكون كيني كرتا dhoofitaanka xoolaha loo dhoofin jiray wadamada carabta oo ugu horeeya Sacuudiga iyo waliba isku taga Imaaraadka Carabta waxaag dawdayaal iminkana waxaynu eegaynaa arrin ku saabsan safiirka China ee Soomaaliya oo shalay soo galay magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland safiirka China ee Soomaaliya ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland xilli ay wali taagan tahay xiisad kala dhalatay heshiiskii Soomaaliya iyo Taiwan Ambassador Shinshan ayaa waxa madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Muuse Biixi Cabdi maadaama uu safar ku maqan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland safiirka ayaa loo sii galbiyay qasriga madaxtooyada Somaliland oo uu kula qaadan doono madaxda ugu sarsareysa Somaliland gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi oo uu kala hadli doono موقفkiisa ku aadan xiriirka Taiwan iyo sida loo hirgelin Mareykanka shalay waxa ku dhufatay duufaanta la magac baxday ISIS oo aan horey loo arag abid duufaan lamida waxaana haatan ay maraysaa jasiiradda Bahamas ee xeebaha Caribbean wararku waxa intaas ku darayaan in laga cabsi qabo in saacadaha fooda inagu soo hayay ay gaarto gobolka Florida ee wadankaasi Mareykanka duufaantan oo shalay ka bilaabatay waqooyi galbeed wadankaasi ayaa waxa xalay ilaa saaka ay ku socotay kilomitir aad u fara badan waxaana xusid mudan in shalay ay joogtay Bahamas maantana ay ku dhowdahay wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Florida baaga dawdayaal qodobo ay kamid yihiin arrimaha duulimaadyada labada wadan ee Kenya iyo Tansaaniya ayaa inoo soo socda balse iminkan aynu eegno madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay in qorshayaal cusub oo la xiriira shirka 15 bishan ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb ay la tagi doonaan magaaladaasi Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweyne Dani waxa uu sheegay in qorshe cusub ay la iman doonaan shirka halkaasi uu ka dhici doona isla markaasina u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada oo asagu kamid yahay iyo madaxda sarsare ee dawladda Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu ka leeyahay rajo aad u wanaagsan ee waxna u tiri doonto dadka Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa hadii shirkaasi uu ku qabsoomo sidii loogu talagalay waxaag dawdayaal iminkana waxa inoo haray xubnihii saadaasha hawada iyo sportska waxaanu ka hormarnaynaa Soomaaliya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka qorraxdu saaka waxa ay soo baxday 5:59 daqiiqo waxaana la filayaa inay dhacdo 18 iyo 12 daqiiqo insha Allah sidoo kale magaalada Kismaayo qorraxdu waxa ay soo baxday 6:13 daqiiqo waxaa la filayaa inay dhacdo 17 iyo 19 daqiiqo sidoo kale Hargeysa waxa qorraxdu saaka soo baxday 5:54 daqiiqo waxaa la filayaa inay dhacdo 5:18 daqiiqo insha Allah haddii aynu dhanka ciyaarahana xalay waxa la ciyaaray kula weyn oo dhaxeeya kooxaha waaweyn Arsenal iyo Chelsea waxaana lagu ciyaaray garoonka Wembley ciyaarta xalay waxa ay ahayd ciyaar aad u xamaasad badan maadaama inkastoo aysan lahayn wax taageera balse Arsenal waxa golash u galay Aubameyang laba gool ay ku badisay oo ay ku badisay Chelsea ciyaartan xalay waxay ahayd mid taageerayaasha Arsenal dal iyo dibadba ay aad u soo weynayeen waxaag dawdayaal guud ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xogta wararka oo aad ka daawanayso TV-ga Benaadir waxaad inaga daawan kartaa cid kasta oo warkeenu sheego baraha aynu ku leenahay internetka ee Twitter YouTube iyo Facebook intaanu kulmi doono barnaamijka la mid ah waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo